السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. كل صلاة baan nidhi bal masaajidka iyo jamaca hala soo tukataan iyo sheekha oon habeen dhaweyto wada hadalana nidhi insha Allah markaan baxayna soo ziyaaran doonaa. Ziyaaradaas baan igu imanay. salaadina waan wada tukanay. Allah inaga aqbalo. salaadu waa tir dhaxaadka diinta islaamka weeyaan. waana meesha qofka laga gartaa ma muslim ba mise muslim ma. gaaladu diinta islaamka meesha ay ka soo galaan waa shahaadateynka weeyaan, laakiin muslimku isagu meesha diinta islaamka uu ka gala waa salaada weeyaan. muslim baan ahay, mana tukanayo, isma qabanayso. axkaamta islaamka oo dhan ma cada salaada waxaan ka ahayn oo dhan nabiga sallallahu alayhi wasallam dhulka loogu keenay oo jibriil baa loogu soo dhiibay calayhi salaam. laakiin salaada nabi maxamed baa loo yeedhay. soo qaadashada nabigu salaada uu soo qaadanayay asaga iyo rabbigii cidba uma dhaxayn. ahamiyadda salaadu ay leedahay eeg. waana micraajka qofka muuminku markuu doono ilaahay inuu la munaajoodo meesha ilaahay qofka muslimka uu kala hadlaa waa salaada weeyaan. ilaahay meeshaad kala hadlaysid eed arjigaaga maaragtaan aad ugu gudbinaysid waa salaada. qofka salaada aan lahayn waxay ka dhigan tahay dee qofkaas ilaahay xidhiidh lama le weeyaan. waana dardaarankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu dhimanayay uu ku dardaarmuu lahaa الصلاة وما ملكت أيمانكم. ورهوي بو نبي لها صلاة كود دالا ورصلاة إلالية ورصلاة كود دالا حق إله ويان صلاة. وما ملكت أيمانكم وحقوق العباد. dadkan adoomaha ilaahay gacantiina uu soo galiyay iyo dumarkan asiiraadka aqalada inagu xidhanay meel kale aan u baxaynin ayakana labadaana xuquuqdooda iska ilaaliya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. xaq ilaahay wuxuu nabigu ka dardaarmay waa salaad. xuquuqda bini aadankana waxa uu nabigu ka dardaarmay waa labada dad ee dadka ugu taageer. adoomaha la adoonsado oo bariga adooma ayaa jiri jiray iyo dumarkan haweenka aqalada inoo joogay ilaahay azza wa jalla aqalada inoogu dhex sugay. عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضي isaguna markuu salaad isagoo ku jira ayaa la duray Umar ibn Khattab oo midida la galiyay. rakaacadii koobaad buu tukaday, rakaacadii labaad isagoo aanan tukan ayaa midida lala helalay. dadna uu dhig baxay. markaas la dul yimid Umar ibn Khattab. aani halka laga siiyay meeshii midida laga galiyay aanu ka soo boodeen baa la yiri. markaas waa amiirka muuminiinta inuu dardaarma laga rabaa. si kasta loola hadlay Umar ibn Khattab naftii waa ku jirtaa, laakiin hadal ma soo celin karaayo. nin baa yimid oo yiri war ana hadal lagu kiciyaan haya Umar ibn Khattab ee kaadiya buuri. waa nin kooma ku jir hadee toole waxa Umar lagu kiciyo koomagi lagaga soo kiciyay as-salaata ya amiir al-muuminiin. muuminiinta oo dhan ilaahay ninkii madaxa uga dhigayo salaadii baa gaadhay, salaadii baa taagan. ereyga markii Umar uu maqlay inuu soo kala qaaday. markaas uu innaha haqqun wala hadda fi al-islam man taraka salata buu yiri.
وحكى بالله هرتانو صلاة دي ما دميسترين ما دميسترين بالله ركعات باكو دمن وحدي هذانا كوم وقلي هذانا وصوكعي ما تكذب ما تكن بالله ما دميسترين هذانا وحدي هذانا كوم وقلي مركز صدحات بدميسترين بركي الله يدواتو كتو صلاة دي ودميسترتي أيو يري الحمد لله الذي أعانني عليها بول إله يقو كالمي يقو عاويي إنا صلاة أنتو كذان أمها النقيا بولي وكما وحو كجرو حدنا صلاة دما اشترايو إنك أنا وحا لغا يبا dad badan oo muslimiin iyako aqligii uu shaqeynayo caafimaadkii uu shaqeynayo dhagahoogi maqalku uu waliba si fiican u shaqeynayo adinka ay maqlayaan oo masaajida wada quruxda badan la meel walba looga dhisay ayaa haddana maanta ummadda salaadii lagu kari laayahay intii badnayd markaasuu Umar yidhi salaada waa xaq Ilaahay nagu leeyahay qofka salaada ka tagayna diinta islaamka nasiibka uma laha ogaada buu yidhi amalka ugu horeeya qofka aakhira markuu taga loo xisaabina waa salaada haday hagaagto amal kasta waa hagaagi buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam haday qofka salaadu ay ka xumaato buu nabigu yidhi wax walba waa ka xumaanayaan qofkaas nolosheenan adduunyada xataa maanta aan la rabnay inay noo hagaagto salaada hagaajinaysa dad badan waxay mudaan nolosha lacagtu inay hagaajiso cidhiidhiga waxa lagaga baxa waa salaada faqriga waxa lagaga baxa waa salaada dhulliga waxa lagaga baxa waa salaada nabi Muuse alayhi salaam reer bani Israa'iil oo la guumaysanayay buu u yimiday muxuu guumaysigii kaga saaray wa waxayna ila Muuse wa akhihi an tabawwa liqawmikuma bimisra buyutan واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا صلاة وبشر المؤمنين صلاة الله يركال ميستا أقل الذين قبلة أوجهدية بيت المقدس بأوتكن يعني يكو موسى عليه السلام ريبان إسرائيل وحو إلي مدي دلقن يا دادون كان يا قحوتيقن يا فقرقن يا عبسدن هذا ربطان إنها تكبح دان صلاة أوغا بكويري حريرك إنك يا إلهي نيدحي أتكيا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مركي سقالكي أقل النبي قولها ومد والبا انتو الصوم مريبو كواي باد وحلا عنو نبي كواي بيمو يعني أساقو مرغوني ومركا نبي مسكيد كسكسو قلي آيادنا مركا قصو دبتي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صلاة دي أرزاق دي بالله اسكو حري إنكو يمكن أرزاق دي صلاة دي كمر راديان أرزاق دي وحا كرادينا شقاء إيو وقوانت أدوية دي إيو قحوتي إيو سومالي دي وقحي ساموكتا إلا يمكن قحوتي صلاة دي نبي محمد يقول أرزاق دي كرادي صلاة دي أهل كاغفر فرد أظفر سنة بنبي قال يقول أو أتكيسو الصبر أرزاقك ويدين من أديك أنا كان يقودين هنا خير قرنا هذا دون يسد بنبي قال له يريس ذاتك إلهي كبا قوم بخير كدم هلي دونا خير دمانتي هدو أدون خير يالله وحلقوا حلا بنبي قال له يري الله كبق إلهي وكعب صو نبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين بوها لكن إنك 10 كلينا سينا يا صلاة دونا أحسن حتى الزمن كي نبي قال محل لقوه لي ما تحتنين بلقوه لي نبي محمد maalintu geeriyooday ninkii talada umada loo dhibay Abu Bakar buuha halku Abu Bakar ka soo galay khilaafada islaamka baa la yidho nabi maxamed oo nool baa lagu yu nabigu ya nabiga lagu yidhi salaadii baa taagan marka Abu nabigu Abu Bakar ku amra salaada dadka ka bixiye buu yidhi Aisha radiyallahu anha ayaa tiri waa raqiiq Abu Bakar waa nin qalbi jilicsano maqaamkaaga haduu istaago quraanka oo akhrinaya waxa ka qaalib noqonaysa beetir oohintiisa markaasuu nabigu ku yidhi adigu sawaaxibatu Yuusuf baa tahay buu yidhi islaantii haweenku moogta makrigooga iska badan markaa buu nabigu war u sheegay buu Abu Bakar umada salaada ha ka bixiye salaada maalinta Abu Bakar nabi Maxamed oo nool uu dadka uu ka bixiyay ayaa laga qiyaas qaatay nabi Maxamed dabadii ninka talada umada qaban kara waa Abu Bakar nin kale ma talada umada iyo mas'uuliyadka umada maanta ninka diinta la waa laga ilaaliyaa zamankeena bal ninka diinta yaqaan ee diinta inoo haya waa la yasaayo waxa la yiraahdaa waa wadaad
ود آد يعني ماشي قف كان انتم بالله يا قال بل قف كان نفته واحد القرآن صار بين ذري حمر كنا فاتحة هذا إيسو مريو فاتحة هذا ما بركة قرآنكم بركة كلية ما قرآنك إن لقول نغمة الله بهاي هاي ودن كان محرق القرآن كيف نقول دبرك ماذا إنك صومالي هذانا ومن القرآن إلى هاي بري وحتى إلى يومنا هذا أن توبت كينين ووح لقى مرقود ويان قرآنكم يقين بو بهاي هاي كالصوني لأن كشاكيه ما عليه لكن ما لها قارك وان كشاكا ودن كان حالده ودن كان أدوكتان وصومري anagoo bari garoonka number 50 markii diyaaradu ay ka degayeen ma kaga soo daadagnay aniga sheekh Ismaaciil oo dhintay Allah u naxariistay ninkiina soo doonay ee baabuur yar oo markatu inagu soo doonay ayaa yiri isbaarooyinkii aad taqaaneen tii macallin quraanka ku soo biirtay guudi waxyaabna war maxaa leedahay macallin iyo xirtiisii baa isbaaro dhigatay guudi haba soo gaadhnay ardaygu qorigiina halka ku haysta kitaabkiina halka ku haysta حرقين هايستا markaas oo go'ay aru sheeg macallinka waa wadaadadii tabliiq weeyaan way ku ducaynayaan yani markaas uu yiri 20 kooda kun ba xalaal ka soo qaad buuli lacagtii balweyntii ee lacagtii wadankeena waad garanaysan oo jooyada dhab halka tuushay waa macallin iyo ardaydii isbaara dhigata indhahan ku aragnay wax la iga sheekay maaha quraanku haddaan meeshiisa la dhigin uquba ka dhalana ogaada marka diinta lagu maqado waa lagu dhargaa diinta ninka diin yaqaana in la qiimeeyo diintu in amraysa oo culimada la jeclaado oo culimada la qiimeeyo oo culimada la qadariyo kor loo qaado maqaamkooda waa inaka caalimka waa nin indho qaba dadka kalena waa indhoolayaal weeyaan ka diin yaqaana waxaan u aragnaa inuu yahay dib ودع كعلومته مادة برتنا واحد لو بحية أقونيهن كواكي نك قيام الليل كتوكنا يا أقونيهنا نك قبرك كو حسابتما يا أقونيهنا نك نلاش الدنبي وين كفكر يا كاسا أقونيهنا في ردر لكلو أركتدي سوا قابن تحي بركة صلاة أرزاقات بالوهلا صلاة عز بالوهلا صلاة شرف بالوهلا waxaan ku dadaalaynaa inaan mujtamaceena salaada ay ku dadaalaan haday dadkani muslimiin weeyaan haday kafada salaadu ay noo badato labada miisaanku waa laba kafadood kafada taariku salaaga iyo kafada saaxibu salaaga mid ka badan taariku salaaga badan maanta meel walba hadii la maro waxay leeyihiin culimadu maalinta dadka salaada tukanaya boqolkii 51 ay noqdaan مسلمك waxa u kordhay ciziya sharaf mooyana muslimka guul u soo hooyatay mooyana dhibaata muslimka ku soo ku dhacmayso waa maalintee koob iyo konton iyo kow maalinta ay noqdaan dadku kuwa masaajida ku xidhan oo cilmiga iyo culimada iyo khayrka iyo dacwada iyo diintooda ku xidhan maalinta noqdaan waxa bilaamaya muslimiintuna inay cizoobaan oo kor u socdaan gaaladii waxay la socdaan hoos ba u dhacayaan hoos wayna socotaa maanta ilaahi baa quraanka noogu sheegay innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun walladina kafaru ila jahannama yuhsharuna wa dambaysa walagood inta adduunka joogan gaaladu maxay ku bixinayaan dhaqaalahooga ma taqaanaa nuurka ilaahayna damiyaan cidaad soo baxda ayaa joojin kara ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلهي وكديدي ما علين كران عداد هذا صوب حدو عداد إفتين كي وضعته وحا كوين بالله يقول كإفتين وين هداية إفتين كي وضعته ولي قد بدأ قالها بحيان كوكو ليسان ما ينبع إلهي وكقوم من دونان وكقوم من دونان لأن مركز دمانا ولا كوكو ليسان دونان مركز دنتان النار الله قادي دونا بإلهي ركوا قال ذا marka ilaahay dad islaam uu inaga dhigay way noo nicmeeyay waliba dadka salaada iyo masjidka ku xidhnaa baad ininku tihiin inta inaga maqana gacanta soo qabano masaajida han keeno insha Allah dhahada لأنه والبو حجعي أفرتن قرابتي سوني شغف يعن وده هلان موقت شغالة نقدان ومصاريف يبيل هلان
maxaa kuu diiday dadkaaga inaad khayrka la jeclaato وأنذر عشيرتك الأقربين markii nabigeena ku soo degtay sallallahu alayhi wasallam saddex maalmood buu nabigu intuu xoolo qalo cunto kariyay ayuu nabigu Quraysh oo dhan u yeedhay facamma wa khassaba lay caam ahaana nabigu Quraysh waa ula hadlay jufa hoosana nabigu reerkiisa waa ula hadlay qul inma a'idhukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jannah in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adabin shadid marka inaguna fadhiga ha ka kacno oo dadka khayrka ha nagu yeedno dadkana khayrka ha noo horseedno insha Allah dhahada